بسم الله الرحمن الرحيم. عشان امتحانها يا مصنع present continuous tense and كان لنا مادة وفعل مكان داعي وقعنت الوهاي مثلا هذا أنا تسأل سؤال I am writing I am writing أنا وقرية فعل كهذا أنا صبنا وقرية I am writing أنا وقرية أنا وقرية I am writing قابل أنا لا ورقة وحأقول أنت بدنا صور مريا subject روح شيء لا هذا مش الشيء إسكان ذي مصور حكرر جباب هذا object أجل مريا لا هذا أنت غالب ك مركب أنت محاوي وحاول نسا verb كان وحل auxiliary or aiding verb it helps this وحاول نسا فعل كان ماشي لو قري أي يهر إماتة أنت بدن وحين لا سقطة أيضا أي أنت بدن قاعدة أيضا أي كذا إماتة كل جزء أنفيرن وكل كلام شركة لنا أنفيرن وحي قاعدة مثلا هذا بانو ويو كلام هي قاعدة نسا we هي قاعدة نسا we are أي قاعدة نسا writing ayalnya nangka we are now on Purina we are a kata and he she it they أنا kata manfaatnya kuliah he is أي قاطع she is أي قاطع it is أي قاطع they are أي قاطع and he is writing أي she is writing it is writing they are writing I am writing أنا وقرية they are writing أي وقرية he is writing أسي وقرية she is writing أيضا وقرية it is writing it وحلوة سمعنا بعني شياشة مثلا قلم بقرية راح هذا it is writing and they are writing أيقو يقريان they are writing أيقو يقريان مثلا حاكينا write كان وحان بعمي كل اسمك متاعين فعلك وحان بقى write قر وحان عرفنا إن إيدي ماشي لقد بحيه أو ing لو دري مثلا فعل كان دائما أسوأ ing لو دري asagoo ing lagu daray wuxuu noqonayaa ficil dhacaya markaa gacanta lagu hayo mise gacanta lagu hayay ayuu noqonayaa warba sidee loo isticmaala writing ficil kale haddaan soo qaadano tusaalahan ficilada aan soo akhrisano soo xasuusta masalan sit markii lagu daro ing waxay noqonaysaa sitting tan hal tii ayaa lagu sii darayaa waayo waa saddex xaraf ayay ka kooban tahay marka hal tii ayaan ku daraynaa oo ziyaado intaan ing aan ku darin haddaan ficil kale soo qaadano tusaale ahaan stand ing haddaan ku darno wuxuu noqonayaa standing haddaan ficil kale soo qaadana aan akhrisanay close lagu daray
ing waxaan helaynaa closing ayaan helaynaa. marka waxaan arkaynaa xarafka hadduu u dambeeyo vowel mise shaqalkaa waan bixinaynaa, waxaan kusii daraynaa ing da ayaan kusii daraynaa. hadduu erey uu 3 xaraf u yahay, xarafka u dambeeya ayaan 2 ka dhigaynaa, ing markaas ayaan ku daraynaa. tanna waan sheegay oo tan iyo tan ayaa isku mid ah. hadduu u dambeeyo shibani mise consonant hadduu u dambeeyo aadi direct ayaa ugu daraysaa ing da adoo wax kale ka bixin mise ku darin ayaad ku daraysaa ing. marka ing marka ficilku lagu daro wuxuu noqonayaa write plus ing writing ayuu noqonayaa, sit plus ing sitting ayuu noqonayaa, stand plus ing standing ayuu noqonayaa, close plus ing closing ayuu noqonayaa. marka ficlan waa ficilo markaa dhacaya, waa writing waan qorayaa, sitting waan fadhiisanayaa, standing waan istaaganahay, closing waan xirayaa. marka inta la isticmaalin baabiyaashan hortood subjectyaashan mise dadkan laga hadlayo mise iska hadlayo kuwan ay qaataan inta badan. intaada ficilka aada isticmaalin kuwan aad rabaa inaad ka hormarsiiso, waayo ficilka ay caawinayaan inay macno u yeelaan. marka I am writing inta markasta waxay qaataa m ayay qaataa. haddaad tid ficilka inuu aada natustid marka inuu dhacayo. we are ayay qaataa, he is ayuu qaataa, she-na is ayay qaataa, it-na is ayay qaataa, they-na waxay qaataan are. I am writing anigu waan qorayaa, we are writing anagu waan qoraynaa, he is writing asagoo qorayaa, she is writing ayadoo way qoraysaa, it is writing ayadoo way qoraysaa mise asagoo qorayaa, waa shay mise xawayaan ayaan ka hadlaynaa, they are writing ayagu way qorayaan. waad bedeli kartaa kolba ficilada inaad bedesho ayaa ficilo kale ku buuxsan kartaa. ficilo ayaan soo akhrisanay. masalan waxaad dhihi kartaa I am opening anigu waan furayaa, I am closing anigu waan xirayaa. marka meeshan dambe bedel oo kolba ficil ku day isku day inaad macnihiisa sheegto. waxaad qortay qaabka ing looga daran waan sheegnay. marka practice garay ku celceli ayagoo badan ku qor, markaas ayaad qabanaysaa. they are closing haddaan dhaho maxay noqonaysaa? closing waan soo akhrisanay, close waa xig, marka waxay noqonaysaa waa xirayaan ayaga. tusaale kale haddaan soo qaato he is matalan haddaan ku weydiiyo he is tusaale haddaan ku weydiiyo he is sleeping maxaa weeye macnaheedu? sax waad sheegtay ayaan umalayaa. sleep waan soo qaadanay, sleeping macnaheedu waxaa weeye sleep waa seexo, waa jiif. marka sleeping waa ficil markaa dhacayo isaga wuu jiifaa, markaas ayuu jiifaa ficilka markaas uu dhacayo. he is sleeping asaga wuu jiifaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. luqadda waxaa practice ay u baahantay inaad qorqortid oo ku celcelisid, isweydii. matalan waxaan rabaa inaad dhahda qaabka u qor leed saanay noqon kartaa. waxaas dhahdaa aniga waan istaagan, maxaa ingiriis loo dhacaa? aniga waan soo akhristaa. aniga waa I-na waxaa ka qaataa m sooma. istaagid maxay noqonaysaa? waa stand. marka ficilka markaasuu dhacaya waxay noqon marka isku daro I am standing. sax waad qoranaysaa I am standing. saas isku weydii. ficilo badan waan qoran doonaa insha allah tartiib degdega ma ficno. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.